waxa shirkan jaraa'id laga qabto waxay yihiin dhibaatooyin soo laabtay oo yaani maaragtay ishugsan oo aysan ka mireey gacmo shisheeye oo lagu dilay amba lagu beegsaayo beeshan ayadoo la leeyahay waxa lala diriraa cadow oo waxa lala diriraa shabaab iyadoo sidaas ay yihiin maaragtay qorshooyinka amba hadafka iyo yaani maaragtay wax lagu raadinayo ma ahin waxa la dilayo shabaab ma ahin waxa duulaan lagu yahay shabaab waa dadkan deegaanadoodii dadka la dilay 24 saac waa beeraley waa xoololey waa dad xoolo dhaqataa oo deegaankaas degan hadda dadka dilanu oo la dilay wixii dhintay waa dhinteen Allahu naxariistaan leenahay waxa dhaawacaahu hadda waxay yaaliin isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho dadka la dilo amba dadka deegaanadaas yaani maaragtay lagu la dagaalamo ee dawladdu la dagaalanto ee shabaab iyo dawladda ee dagaalkaas u dhaxeeyana dhaawacyadooda lama keeno magaalada Muqdisho ee cid walba meesha wax ku daaweysan kartay ku daaweysataa mar hadii dhaawacyada la keenayo magaalada Muqdisho isbitaalada ku yaala waxa meesha ku dagaalamaya amba lagu dilaayo inaysan shabaab ahayn ay cadeeyeen waxaan leenahay marka saddex qolobo waxaan rabnaa inaan warbixinadayna aan gaarsiino dawladda federaalka Soomaaliya ma ahin dawlad daga xiran ma ahin dawlad aan war ka hayn dalka ay xukunto waxa ka dhacana ogaalay ku tahay waxaan leenahay dagaalada soo laabtay ee dadka qaasa lagu beegsanayo waxaad moogtihiin maahan dadka yaani maaragtay shaarka dawladda aad u geliseen ee dagaalada ka wada deegaanadaas waa ka warqabtiin waxa ay dilayeen inay shabaab ahay waa ogtiin waxaan leenahay shaqada aad haysiin iyo howlgallada aad dadkaas u dirsateen ma ahin sidii loogu talagalay ma ahin dadkii aad u dirteen waxay dilayeen waxaan leenahay horta taas fiiragaala u lahaada ogaada hadad ogeedeenna waa ogeedeen hadadna ogeedna hadaan idin sheegaynaa midda labaad oo ayadana inaan warbixinta gaarsiino aan rabno waa yaani maaragtay nimankan Amazon la yiraahdo oo degan deegaanadaas oo ka howlgala oo maaragtay dawlado kala duwan isugu jira oo saanada hubeed iyo maaragtay asaadka bixiya nimanka wax dilaya ee beesha xawaadla ku abtirsada ee shaatiga bedeshay ee shaatigi macawisley ay la baxeen macawisley inta la baxay lagu hubaynayo beelaha kale diriska la ah oo deegaanka la degan waxa waaye waxaan leenahay idina Amazon waxaad u howlgeliseen ma ahan beel inaad la safatiin uma joogtiin inaad beelay walaalaa yaani maaragtay isu hubaysiin uma joogtiin waxaad u joogtiin nabad ilaalin waay nabad ilaalin ti yaani aad meesha u joogtiin inaad ku ekaatiin la rabaa inaad beelaha qaar la safatiin ma ahin beelna aad yaani maaragtay duulimaadka wax uga soo qaadin sax ma arimahaas waxaan leenahay arimaha noocaas la joojiyo midda saddexaad oo raba inaan ku daraa waxay tahay deegaanadaas waxa ka jira maamul goboleed Hirshabelle la magac baxa oo hadda madaxweyne u yahay Maxamed Cabdi Waare ma ahin marka inuu iska aamusnaado madaxweynaha deegaankaas ayadoo dadkii deegaanku ka dhaxeeyay iyo dadnimada la isugu diray ee maamulku ka dhaxeeyay isdilayaan amba isku soo duulayaan inuu aamuso aadan uga xunahay aad iyo aadan uga xunahay mar labaadna maaha mar saddexaadna maaha inta dagaalkaas u dhacayo dadka la dilay marka asagana waxaan leenahay waa ku dhaliilan tahay arimahaas yaani maaragtay deegaanka ka dhaca oodan yaani maaragtay adan talaaba ka qaadin aad iyo aadan kugu dhaliilaynaa leen waxa la yiri hadda koor nin beerreey beer wuxuu ka galaa la yiri ayax beerti ayaxii uga maara waayay ayax markuu uga maara waayay waxa beertii uu soo goobay wuxuu aragay haraatigii la cuna oo badarkii la cunaayo ayaxii cunaya la cuna mana bixi kariya ayaxii oo tira badnay markaas wuxuu ku yiri war haraatigeelow deegaanka adigu ka tirsaneedo nin deegaanka jooga ahayd ayaxoo hadda yimidaad beertayda la cuno waysaa ayaxna waa baxa ayaa adiguna way soo horeynaa
dadka deegaanada ka dhaxeeyaan oo diriska oo wadaaga ah oo yani taariikh soo jireen isla leh waa isla joogi doonaan taariikhduna wax bay qoree dadka yani deegaanada hadda ku soo kordhay ee amisoonta ah ee ciidamada dawladaha kala duwan ka socdaana waa baxayaan marka waxaan leenahay yaan la iskula taagsanin yaan ciidamada yani maaragtay la isku kaashanin yaan la isu magac bedelanin yaan yani maaragtay la isu shaati bedelanin yaan leenahay dadku waa is yaqaanaa waa isla dhashay hal deegaana waa ka dhaxeeyaan marka waxaan leenahay arrimahaas laga waantooba si guud iyo si gaarba hadday dhici weyso oo arrimuhu sidaan u sii socdaan dadka hadda fadhaaho inta ma ahan hadda dad gacan waabatiya ma ahan dad looga mohdo dagaalada ma ahan dad yani maaragtay xaqooda amba xaquuqdooda dhacsawa laguma yaqaan marka haddana ma rabno inaan dagaal iclaamino oo dhahna dagaalaa jira hala soo baxoy inaan dhahna ma rabno